xoolaha basumada lagu baadi sooca xoolaha basumada lagu baadi sooca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan jiida ku soo jeeda badda cas iyo gacanka cadmeed ee dhulka Soomaaliyeed ee bari iyo galbeed wada jiidan ayaa waxa ku yaala dhul la yiraahdo Cal waa magac juqraafiyeed oo bii'adda ama deegaanku sida uu u yahay dhulka Soomaaliyeed ciidda iyo dhirta iyo dhagaxa uu kala leeyahay oo kala duwan oo midba uu magac yeesho jiidaas oo dhan ka mid ah cashaasi waxay u qaybsantaa laba magac waxaa la yiraahdaa Cal madow iyo Cal miskeed inta barigu madow ma leh oo lama yiraahdo Cal miskeed baa la yiraahdaa samayskeedu wuxuu ka soo jeedaa haddii aad u fiirsato waxa Great Rift Valley la oran jiray dhulka Kenya iyo bariga Afrika dhexdeeda qura ma ahayn laakiinse marka riftkaasu samaysmay ee geeska Afrika ayaa laa ka mid ahi ay hoos u go'day oo ay halkaa gaadhay riftka waxa ka samaysmay magacyo kala duwan oo cashaasi dhexdeedu ay u qaybsanto oo ay kala leedahay waxa calay cal ma tahay ma aha marka xaaxiga iyo xeebta iyo halka badda ay mawjada ku soo tuurto ama ciideeda tamuuxa la soo dhaafo ayaa la soo maraa meel la yiraahdo guban oo aad moodo marka Ingiriisiga ay u bixiyeen qoladii isticmaalkii Ingiriisku uu dhulkii oo dhan guban ka dhigay ma wada gubna laakiin si buuraley aan iyadu geed ka bixin oo gubanka la yiraahdo waxa ku xiga qayb kale oo isla cashiya oo la yiraahdo Calcaska waxa ku xiga qayb kale oo la yiraahdo Ragarka markaad hore uga sii baxdo waxaad u timaadaa Gadoobka markaad uga sii sare u sii aado waxaad u timaadaa madarku wuxuu u sii qaybsamaayuu yeeshaa saddex dhaarac qaybahooda waxa la kala yiraahdaa marta hoose marta dhexe iyo marta sare marka aad ka soo gudubto ayaad soo gaadhaa jarcaleedka kilifka kala qaybiya casha iyo oogada marka aad ka soo baxdo oo funducihiisa kala duwan uu leeyahay aad ka soo kormarto ayaad u timaadaa qaybta la yiraahdo ayowga ilaa madarka weeye inta madowga asalka ah yeelata marka dhulka deegaan ahaan loo tegayo labada caawo is helay ayaan la yaabanahay oo la yimaado oo ay tahay xilli sugan oo la dego oo loo soo guuro marka oogada ilaa hawdka iliilaha nugaaleed iyo soolasha iyo meel waliba ay abaarsato oo xilliga jiilaalka lagu magacaabo uu yimaado ayaa badda cas haysimada soo marta ee biyaha ka soo gudba bari carbeedka roobka ay ka soo qaado ayaa ku hoora oo buurtaasi qabata marka ay guluulcatayso daruurtu oo ay madaxa ku dhifato
buuraha halkaa ku yaalla oo ay cayryaantu isxidho oo uu roobka la yidhaahdo wajiinaha ama xaysimada ay cidibo meel u taqaano uu ku hooro ayaa cashii madoobayd sii madoobaataa marka horena waxay u madowdahay dhirta maqalalaanka ah oo mar walba evergreenka ah oo ku yaalla ayaa magaca keenay oo ay sidaa u tahay oo loogu yaqaanaa midabkaa madow waa dooga haddii aad ka taabato oo aad aragto marka loo soo guurayo oo jarcaleedka korkiisa laysa soo taago waa labada caawa kulmay erey xoolaha aad waddo waxaa loogu heesaa oo lagu salaamaa cashaa marka la imanayo calay hooyoy caleyma higlooy calay waa nabad maanta ururkii haweenka ee hooyanimada iyo cashii marka ay ku magac darsadeen markaa ururkaneenu calay hooyoy baa tihiin oo wixii hadda ka dambeeya daaqsintii iyo nurkii iyo wanaaggii ay cashaasu lahayd ayaa ururku xil buu qaaday ee laga doonayaa inuu soo liso oo u keeno haddaan ku dul maro dhirta eeg wax walba waa degaankaagii waa afkaagii inaad u fiirsato waxa ka madow dhirta geed madowga ah oo aan marna qallalan waxa ka mida oo ugu badan geedka dhosoqa salamacda xaydhamadka dhicirta qalaanqasha higlada mooliga iyo kuwo badan oo la mida dhirteeda mar walba qoyan geed qodxeedka ku yaala waxa ka mid ah geed qodxeedka qansaca iyo qaydarka xitaa noocyo quraca ah oo ka baxa oo ku yaala waxaa ku yaala oo geed madowgii raaca garaska iyo dhir badan oo midho laga cuno waxaa ku yaala cadaada iyo inta badan oo geed qodxeedka kuwa qaydarka waxa ay ku leedahay geedo aan meel kale oo dhulka soomaaliyeeda ka bixin iyo xoolo aan joogin waxay leedahay geedaha faleenka ee frankincenska dhirta xabagta laga gurto ee uu ka mid yahay yagcarka iyo falaxda iyo xudayga iyo malmalka iyo murkudda oo laga sameeyo waxyaabaha qaaliga ah oo la calmadow waa meel caynkaasa ee ma aha magacanyada siyaasadeed yaan loo qaadanin oo la bixiyey oo land gadaal laga raacin doono waa magac samayska noocaasa u yiilay waxa ka dindima oo dhulbiyeedkaasi ay leeyihiin taabsinaha ka bilaabma meelaha aan tilmaamayo biyo joogta u socda oo loo yaqaan badowlahada waxa ay leedahay dhadhiimaha tifqaama oo buuraha salkooda ka soo baxa waxay leedahay biyaha ilo burqanaya oo joogto ah waxa ay yeelataa oo ka sii samaysma gaso sida uu dhulku buur iyo u yahay dhir jiq ah ayaa meelo bannaan oo wareegsan oo doomaarta quri ka baxdo oo biyo ceegaagaan oo gaso loo yaqaano oo beera ah ayaa ku gaashaysan oo ku wareegsan waa wax sidaa u eeg oo